السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن أو wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada channelka aan ku leeyahay YouTube-ka Sayid Abu fadlan daawade si naxariis leh waxaan kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe dhahdo like share iyo comment-na waa inoo dhiirgelin mahadsanidin waxaa maanta barnaamijka wacyigelinta bulshada kusoo qaadan doona hablihii Soomaaliyeed ee quruxda badnaa ee had iyo jeer dhibaatooyinka ay kala kulmaan qaar ka mid ah ragga Soomaaliyeed oo arxan laawayaasha isla markaasna gabdhaha sharaftooda ku ciyaara haddaba waxaa barnaamijka wacyigelinta bulshada marti ugu ah Nimco oo ku nool dalka Kenya ayaa qadka taleefanka si toos ah uga jirta Nimco ku soo dhaw barnaamijka wacyigelinta bulshada waa ku dhawahay walaalkay aad iyo aad ayaa u mahadsantahay sida wanaagsan ee aad igu sharaftay barnaamijkaada waa tahay Nimco sanadihii la soo dhaafay 2020 iyo sanadkan sii dhamaanaya 2021 waxaa baraha bulshada ku soo badanayeen gabdhihii sharafta badnaa ee Soomaaliyeed ama mustaqbalkooda lagu ciyaarayo markaasna ku ciyaaraan wiilal Soomaaliyeed bal maxaad kala socotaa arintaas Nimco arrinkaas waxaan kala socdaa arrinka social media hada ka taagan inuu aad iyo aad u xun yahay wax aad iyo aad u qaabtaran inuu yahay marka waxaas waa wax laga xumaado qof bini'aadan damirkiisa wuxuuna qaadan karin oo dhan ayaa ka socda waa gartay qaar ka mid ah ragga Soomaaliyeed gabdhihii sharafta badnaa ee mustaqbalkooda ku ciyaaraya bal sidee u aragtaa adiga ahaan wallahi ragga Soomaaliyeed ay gabdhaha yaryarka mustaqbalkooda ay tiigsanaya mustaqbalkooda ku ciyaarayo aad iyo aad ayaan uga xumahay waxaan leeyahay gabar way idinla dhalatay wayna idin dhashay wayna idin dhali doontaa marka sida gabdhaha walaalihiin sharaftooda u jeceshihiin inaan gabar walba oo maxalad oo walaashiin hadday idinla dhalanin ina walaashiin camal ka soo qaataan oo sharafteeda iyo mustaqbalkeeda aad ku fiirisaan oo yacni sharaftooda aad dhowrtaan ayaa intaas ayaan oo ku darsanay wiilasha Soomaaliyeed waa tahay Nimco dhibaatada waxay ka taagantaa soo lama dhigi karo gabdhaha maadaama muuqaalka qof qasab ama ugu soo qaaday aysan jirin dabcan waa la dhigi karaa gabdhaha horta qaladka way leeyihiin aad iyo aad ay u qaldan yihiin haddii ayaga muuqaal qaldan aysan gudbinin ama sawiro qaldan ay gudbinin maanta wax faafi lahaa baraha bulshada meelaha lasoo dhigi lahaa maba aysan jiri lahayn ayaan aaminsanahay aniga ilaa haddii yani teleefonadooda waxyaaba ay ugu jiraan oo kale teleefonka waa laga xadi karaa wuu kaa dhumi karaa oo kaleeto haddii taas oo kaleeto meelahaas oo lagala soo baxaysan waxay gabdhaha ayaga muuqaalada diraan ayagana sawirada qaldan diraan marka gabdhaha qaladka ugu badan horta aniga waxaan saarayo waaba gabdhaha wiilashana qaladka waxaan ku saarayo waxay tahay inay sharafta gabdhaha walaalahooda yacni raqiis ay ka dhigaan ay faafiyaan gabdhaha walaalahooda u nixin waxyar xataa naxariis aysan u lahayn ayagana taas ayaan qalad ku saaraya waa gartay dhacdadan mar walba ay soo noqonayso gabdhaha Soomaaliyeed lagula kacayo gabdhihii sharafta badnaa sidee looga hortagi karaa wallahi waxaa looga hortagi karaa gabdhihii Soomaaliyeed inay yani oo wacyigelin loo suubiyo maalin walba oo dhiirigelin loo suubiyo oo loo aqli celiyo gabdhaha waa iska caruur waaye waa la siran karaa inkastoo qof kasta aqligiisa isku celin karo laakiin in wacyigelin loo suubiyo gabdhaha ayagana ay xishoodkooda yani maxaa la dhahaa sharaftooda ay ilaashadaan sharaftooda iyo sumcadooda iyo sumcadda waalidkooda intaba ayagoo ilaalinayo waa inay arrinkaas ka feejignaadaan taas ayaa looga hortagi karaa wiilashii Soomaaliyeed ayagana inay walaalahooda sharaftooda u ilaaliyaan intaas ayaan kusoo koobaya marka Nimco adiga ahaan soo lama dhihi karo wiilasha Soomaaliyeed ayaga qaladka ugu weyn ay leeyihiin wallahi
wiilasha Soomaaliyeed ayagana qalad way leeyihiin, gabdhaha Soomaaliyeed ayagana qalad way leeyihiin, laakiin qaladka ugu weyn waxa saaraya waa gabdhaha ayaga ayaa xishoonaynin, ayaga ayaa sharaftooda dhowran waayey. haddii ayaga video qaldan iyo waxyaabaha markii la weydiiyey ay diraan, qof bini aadan oo sharaftooda u ilaalinaya ma jirto. nimanka wiilashana aniga waxaan kula talinaya aan u sheegaya gabdhaha walaalahooda sidii sharaftooda ay u jecel yihiin inay gabdhahan kaleetan ay u jeclaadaan. koos gabar waa gabar, mustaqbal ayay leedahay, mustaqbal ayay tiigsanaysaa, horumar ayay leedahay. marka waxaan leeyahay wiilasha Soomaaliyeed maxaa naxariistiidin diiday, way ugu naxariisanaynin gabar walaashiina ah oo sida gabdhihiinkooda la dhasheen gabdhihiinkooda la dhasho oo kaleeta oo sharaftooda ugu ilaalinaynin, oo muuqaaladooda ganacsi uga sameynaysaan, risaaqada ama muuqaalo xunxun aad ku raadinaysaan iyo xaaraanta aad ku raadinaysaan. ilaahay meel kale ha idinka siiyo. gabdhaha walaalihiin sharaftooda u dhowra, waxyaabahaas oo kaleeto wax lagu ganacsada maahan. ilaahay ka baqa, ilaahay u toobadkeen ayaan leeyahay. waa tahay ugu dambeyn maxaad kusoo gabagabeynaysaa? wallahi ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynayaa rag iyo dumarba inay maxaa la dhahaa noloshiina iyo mustaqbalkiina iyo aayihiin aad ka fikirtaan. rag badan oo ayaga xataa waxaa arkaysaa oo muuqaaladooda la faafinayo, gabdhaha kaliya xataa maahan. marka qof walba waxaan leeyahay ilaahay idin uunta ka baqa. maanta waa adduunyo, waa la dhimanayaa. jirkiini cadaab ha ku gelina. waxyaabaha jirkiina aad ku shaqaysanaysaan meel kale aad ka helaysaan. gabdhaha walaalihiina sharaftooda u ilaaliya. gabdhahana waxaan leeyahay sharaftiina iyo sumcadiina ilaashada, waxyaabaha faasiqnimada iyo ku dhaqmaysaan ka fogaada. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Nimco, waqtigaaga quruxda badan waan kaaga mahad celinaynaa. adaa mudan walaal, waa mahadsan tahay.